بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسو دوادا وربحين كسابسان كنيسة هوري أو مر مساجد أهان جرتي أو هدا مرن كتاغين يحي محكمة أغسر رئيسة دالك تركيغا يا لغوة إني قوان كغارتو إن اسمها هاقية زوفيد كويا لمقالة إسطنبول إن لو رغي كرو مساجد إيا إن كالي اسمها سيولا ديسي قرنيغي لحادا يا وحا أو أها كنيسة أغوين إيا أدونك مدوكون سنة dhismahaasi oo hadda ay aqoonsan tahay hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ayaa waxaa lagu bedelay masjid sanadkii 1453 xilligaasi oo magaalada Istanbul ay qabsatay boqortooyadii Cusmaaniyiinta balse waxaa madxaf loo bedelay sanadkii 1990 haddii maanta ay maxkamaddu ogolaato waxa uu dhismahaasi mar kale noqon karaa masjid madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa intii lagu guda jiray ololaha doorashada sanadkii hore ku baaqay in dhismahaasi loo bedelo masaajid arintaasi ayaa ahayd mid kooxaha islaamiyiinta dalkaasi in muddo ah ku taamayeen hase yeeshee xubnaha mucaaradka ee cilmaaniyiinta ayaa tilaabadaasi ka soo horjeestay hindisaha ah in dhismahaasi masjid loo bedelo ayaa waxaa ka dhashay dhaleeceen caalami ah oo ka timid hogaamiyaasha diimaha iyo kuwa siyaasadda ee adduunka oo dhan madaxda kaniisadda Orthodox-ka ayaa ka soo horjeestay talaabadaasi sidoo kale dalka Greega ay ku nool yihiin malaayiin ka tirsan mabaadi'da masiixiga ee Orthodox-ka ayaa diidan in dhismahaasi laga dhigo masjid wasiirka dhaqanka dalka Greega Liona Mindoni ayaa ku eedeysay Turkiga inay soo nooleynayaan cunsuriyad ku dhisan wadaniyad iyo dareen diimeed waxayna ku dooday in xarunta UNESCO aanay cidna waxba ka bedeli karin aan ka ahayn guddi ka kooban dawladaha kala gedisan ee hay'adaasi balse wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut ayaa ku adkaystay in xukuumadda Athens aysan xaq u lahayn arrinta dhismahaasi maadaama uu ku yaal gudaha dalka Turkiga agaasima ku-xigeenka hay'adda UNESCO Hornazi oo wareysi siiyay wargeyska The New ee dalka Greega ayaa sheegay in isbedel kasta oo lagu sameeyo dhismahaasi ay tahay in marka hore ogolaansho laga soo helo guddigaasi waxa uu intaasi ku daray in hay'adda UNESCO ay Turkiga u qortay waraaq ku saabsan hindisahaasi balse ilaa haatan aysan wax jawaab ah ka helinin taariikhda dhismahan taariikhiga ah ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Fatih ee magaalada Istanbul oo ku taala daanta galbeed ee marinka Bosphorus dhismahani waxa in la dhiso amray boqorkii Roomaaniyiinta Justiniankii koobaad sanadkii 532 xilligaas oo ay xarun u ahayd maamulkii Roomaaniyiinta injineerada dhisay dhismaha ayaa qalabka ay dhismaha ku dhiseen waxa ay ka keeneen meelo kale waxa la dhameystiray dhismahani sanadkii 537 waxayna xarun u noqotay wadaadadii Masiixiyiinta dhismahani Hagia Sophia ayaa muddo ku dhow 900 oo sano xarun u ahayd kaniisadda Orthodox ee bariga balse sanadkii 1453 suldaankii Cusmaaniyiinta Suldaan Maxamedkii labaad ayaa qabsaday magaaladaasi oo hore loo oran jiray Constantinople kadib waxa uu bixiyay magaca Istanbul waxa uuna sidaasi ku soo afjaray xukunkii maamulkii Roomaaniyiinta markii uu dhismahani Hagia Sophia uu gudaha u galay Suldaan Maxamedkii labaad waxa uu amar ku bixiyay in dib u habeen lagu sameeyo isla markaasna loo bedelo masjid halkaasi ayuu ku tukaday salaadii jimcaha ee ugu horeysay ee lagu tukado gudaha dhismahani maalmo uun kadib markii uu qabsaday magaalada farsamayaqaano ka tirsan Cusmaaniyiinta oo dhismaha ku takhasusay ayaa halkaasi ka saaray astaantii kaniisadii Orthodox waxayna ku dareen munaarad astaan u ah masjidkaasi ka hor inta aan la dhameystirin masjidkani hadda caanka ah ee leh midabka buluuga masjidka Hagia Sophia ayaa ahaa masjidkii ugu weynaa ee magaalada Istanbul injineeradii dhismahaasi u bedelay masjidka ayaa markii dambe dhisay masjidka buluuga ah iyo kuwa kale oo badan oo laga dhisay magaaladaasi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan caalamka dhamaadkii dagaalkii koobaad ee adduunka sanadkii 1918 kadib boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa la jabiyay oo la kala qaybiyay waxaase markii dambe soo baxay xoogagii wadaniyiinta kuwaasoo markii dambe dhidibada u aasay dalka haatan lagu magacaabo Turkiga aasaasihii Turkiga iyo madaxweynihii ugu horeeyay dalkaasi Mustafa Kemal Atatürk ayaa xilligaasi kadib amray in dhismahaasi Hagia Sophia loo bedelo madxaf waxaana tan iyo sanadkii 1935 dhismahaasi uu ahaa midka ugu badan ee loo soo dalxiis tago dalkaasi Turkiga
hadda se kooxo islaamiyiin ah ayaa waxa ay dalbanayaan in mar kale dhismahaasi laga dhigo masjid, waxaana jirtay in mararka qaar ay dibadbaxyo ka dhigaan bannaanka hore ee dhismahaasi. madaxweyne Erdogan ayaa isna doonaya arrintaasi, waxa uuna ololihiisii doorashada ee sanadkii hore ku sheegay in ay khalad ahayd in dhismahaasi laga dhigo madxaf. tan iyo xilligaasi waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu amray in la eego qaabkii dhismahaasi loogu bedeli lahaa masjid. hase yeeshee masiixiyiinta Orthodox-ka ayaa arrintaasi diidan. mid ka mid ah hogaamiyaasha ayaa sheegay arrintaasi in ay niyad jab ku tahay malaayiin qof oo masiixi ah. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhankiisa ka digay in dhismahaasi masjid loo bedelo. asbuucii la soo dhaafay ayaa safiirka Mareykanka u qaabilsan arrimaha xorriyadda diimaha ee dibadda ayaa waxa uu baaqay Turkiga in dhismahaasi aan la taaban. guud ahaanba halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii ku saabsaneed masjidkii Hagia Sophia. warbixinta waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Sayid Cali Cabdisalaan Xasan. warbixinta waxaa idin soo diyaariyay Cabdishakuur Faarax Salaad Master Shakra. warbixintan lacayna intaan ku kulmayno sidaas waxaan kaga tagaynaa nabad diino.